Bismillahirrahmanirrahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo mowduuc ku saabsan sakaatul fidriga. Insha Allah muuqaalkan waxaan ku baran doonaa maxay tahay sakaatul fidriga, yaa laga rabaa sakaatul fidriga iyo maxay tahay faa'iidadeeda. Magacaygu waa Shumaad Maxamed, channelka aad naga daawanaysaan waa Shumaad Xaaji. Fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka like saarto, la wadaagto asxaabtada, subscribe inoo saarto si aan u soo badino muuqaalo caynkan ah. Anigana waxay ii tahay dhiirigelin si aan idinla wadaago mowduucyo caynkan ah. Sidee u dahaarinaysaa soonkaaga ama aad u dhamaystiraysaa? Laga yaabaa soonka aad soomayso inuu ahaa mid aan dhamaystirnayn. Tusaale ahaan, salaada markaad ilowdo hal rakaca ama markaad ilowdo halka aad maraysay salaada si ma dhamaystirna, waxaa lagu dhamaystiraa sujuudu sahwiga. Sidoo kale soonkuna waxaa lagu dhamaystiraa sigada. Sidee u gelinaysaa farxad iyo dhoolla caddeyn masaakiinta si ay u farxaan maalinta ciidda sida adiga aad u faraxsan tahay oo kale oo aad u ciidayso? Ibnu Cabbaas Allah ka raali noqday waxa uu yiri rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa uu kor yeelay sakaatul fidriga si ay u noqoto dahaarad soonkaaga. Haddaba waxay isweydiin wadaan maxay tahay dahaaradda? Dahaaradda waxa ay tahay waa inta aad soonka ku jirtay in aad dad xamatay, inaad been sheegi jirtay, inaad dadka dhibi jirtay masaakiinta. Sakaatul fidriga waxa ay waajib ku tahay muslim kasta naftiisa iyo naflaha kale uu wakiilka ka yahay sida caruurtiisa iyo xaaskiisa. Hadduu haysto wax ka badan cuntadiisa iyo cuntada ehelkiisa maalintaas, shardi uma ahan inuu haysto lacag badan. Qof walba waxaa waajib ku ah 2 kiilo iyo bar ama 3 kiilo iyo bar waxa uu haysto ah inay ahaadaan bariis, timir iyo qamadi. Can Ibn Umar radiyallahu anhu Allah ka raali noqday waxa uu yiri rasuulka waxa uu kor yeelay sakaatul fidriga shood timir ah, shood qamadi ah, cabdiga iyo kan xurka ah, ninka iyo naagta, midka yar iyo midka weyn ee muslimiinta. Waxa uu kaloo amray in la bixiyo dadka intaysan aadin salaada. Waxay waajib noqotaa maalinta ugu dambeysa ee Ramadaanka, waxaana khayr badan inuu bixiyo inta aan la gaarin salaada ciidda. Dhib ma lahan hadduu bixiyo maalin ama 2 maalin ka hor maalinta ciidda, taasi oo ay tahay markuu marayo Ramadaanka 28. Mana wanaagsan in aad ka daahiso maalinta ciidda. Haddaad ka daahiso maalintaas waxay noqonaysaa mid aan zaka ahayn oo kaliya sadaqo aad baxsatay ay tahay, waxaana lagu lahaan doonaa. Marka dadaal in aad bixiso adiga oo ka raadinayo dahaaradda qalbigaaga iyo iimaanka wanaagsan. Fadlan waxaan kaa codsanayaa in aad muuqaalka like saarto, la wadaagto asxaabtada, subscribe inoo saarto si aan u soo badino muuqaalo caynkan ah. Anigana waxay ii tahay dhiirigelin si aan idinla wadaago mowduucyo caynkan ah.